banaanbax ballaaran oo ka dhacay maanta gudaha magaalada Boorama ayaa waxa isaga hor yimiday qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama iyo ciidamada biliiska isku horimaadkani ayaa waxa uu sababay dhaawac dadweynahani gadoodsan ayaa waxa ay diidanayeen xariga loo geysanayay fanaanka caanka ee Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha magaalada Boorama walow aan la garanayn sababta loo xidhayo fanaanka isla markaana ciidamada biliiska ay ugu taxaabayaan xabsiga waxa ka warbixisay xilliga la soo weeraray isla markaana ay ciidamada biliisku soo daateen xaafada waxana warbaahinta la hadashay isla markaana ka warbixisay saacada ay ciidamadu soo dooneen fanaanka waalidka dhalay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac waxayna tilmaamtay xilliga la nagu bilaabay daakirkii bay ahayd ilaa xilligana wala nahaystaa ciidan bana soo weeraray dhabaxa jood been xalay kulku yimaadeen sax imikana ciid ayna ka badan bay ahay agee faamigiisu baa joognay cid kale ma joog sax xabadii la riday baa nagu soo yaacay soo gidaarkaas madaxa ku dhintay jiiday soo direys xidhan askariya sax jiidayeen inantii bay qaadeen oo gaariga ku riteen inankii kale qaadeen oo gaariga ku riteen adiga halkii ay ka ridanayeen la dhaceen bud qayladii buu jaarkii nagu soo yaacay jaarkiina waa kan xabadna jaal la isku xaamiyey dadka ay daawanaya waxaan ka codsanayaa dalka waan u dhalanay halkaan joogno ku dhashay ya ma caayin waxuma galabsanin ya dee halana nabadgeliyo alla kama baqayaan ay joog naftu kaga baxaysa weeyaan ilaahay kama baqayaan joog naftu kaga tagtaa ma sakaraadaan waa musuqa waa khaayanimada waa dhigacafka ay yihiin dadka wada haliilayaan geesta kale maray ku gala telefishinka caalamiga ee bulshada si wax uga weydiiyo maamulka gobolka kan degmada Boorama iyo taliyaha qaybta gobolka Awdal banaanbaxyadani sababay dhaawaca isla markaana ay isaga hor yimaadeen shacabka iyo ciidamada biliiska ee gobolka Awdal ayayna u suurtagelin waa Shucayb Maxamed kaan shacbiga TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada